بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga amal oo barnaamij asbuucla ah asbuuc walba inay kaga yimaada xarumaha SBC barnaamijkan waxaanu kusoo qaadanaa barnaamijyo aanu ugu talagalnay inaanu ku kobcino ama kor u qaadno ganacsiga waxaanu ku marti qaadnaa dad aqoon u leh mowduuca markaas laga hadlayo barnaamijkan waxaad ka daawan kartaan oo kala socon kartaan baraha bulshada aan ku leenahay akoonadaan ku leenahay sida YouTube-ka Amal Bank shaashadani ka muuqda Facebook-ka iyo Twitter-ka intaba waa nagala socon kartaan wixii fariinana waxaan ugu soo gudbin kartaan emailada iyo telefoonada shaashada inay ka muuqda tani waa xalaqadii 12aad ee barnaamijka ganacsiga amal waxaana marti inuu ku ah Dr. Maxamed Faahiye Ciise oo ah maamulaha faraca bangiga amal gobolka bari iyo sanaag bari ahna bara jaamacadeed oo ka dhigay jaamacadaha dalka in badan ka soo shaqeeyay arrimaha bulshada doctor ku soo dhaw barnaamijka ganacsiga amal waa mahadsantahay Cabdifatax oo ku dhaw doctor xalaqadeenu maanta waxay ku saabsan tahay akhlaaqiyaadka ganacsiga qofka ganacsiga ku jira laga rabo ama akhlaaqiyaadka ganacsiga islaamka marka ma saxiix ba aragtida oranaysa dhaqaaluhu meel laba kama soo galo akhlaaqiyaad iyo wax la halmaala wadan arinta maxaa ka jira بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد marka hore hadaynu u galno su'aasha ama aragtida oranaysa dhaqaaluhu ama ganacsigu akhlaaqiyaadka iyo qiyamka inuusan meelna ka soo gelin waa aragti dabcan baatila aysan waxbana ka jirin bal markii islaamka iyo ganacsiga ama dhaqaaluhu wax kala maarmo maaha waa wax ku dhisan caqiidadii islaamka qiyamka islaamka ayaa ku dhisan marka haba yaraatee yani aragtida oranaysa in ay kala baxsan yihiin dhaqaalaha iyo qiyamka islaamku waa nadariya waxba ka jirin waxaana daliil u ah symbol dhaqaalihii saan marar hore sheegnay waa nolosha tiirkeedii waxaynu sheegnay shanta tiira islaamka mid ka mid ah waa sakadii iyo dhaqaalihii buu ka hadlay sidoo kale ma kala maarmaan qiyamka akhlaaqda iyo dhaqaalaha islaamku ma kala maarmaan waxaan marka oran karnaa si kooban caqiidada islaamka iyo dhaqaaluhu wax kala baxsan ma waxaa kamid ah ala sabiil mithaal yani qofku uu amiin yahay amaanada ilaaliyo waxaa kamid ah in qofku maxaan iraahdaa daacad yahay waxaa kamid ah qofku inuu wax itqaaniyo in Allah ida amila ahadukum amalan ay yutqina waxa soo dhan waxay muujinaysaa yani dhaqaalaha islaamku inuu ku qotomo qiyamka iyo aqeedada iyo mabaadi'da ee asaasiga ah ee islaamiga inuu ku qotomo ayaa halka ka garanaysa aad iyo aad santahay Dr. Maxamed Faahiye ma la dhihi karaa ama qiimo inta la eg ayuu dhaqaalaha islaamku ku fadhiyaa qofka ganacsadaha ee amiinka ah يعني قيمة انت اللي كسو كردين كرا تاجر امين كنعسده امين ما سنتهي يعني سيدي ان حلقات هore ku sheegnay dhaqaalaha reer galbeedku ama dhaqaalaha aan ku dhisnayn hab dhaqaaleedka islaamku waxyaabaha aynu sheegnay tilmaamihiisa inay kamid ahaayeen intihaaziya ama danaysi iyo wax la mid ah laakiin qofka muslimka ah ee ganacsanaya waa qof amiin ah
وقف ربه إنه يسوون فائدة أو دنيستو ومدنا أفائدة يودني تصالي يردن كبحنه قف كتاجر كام حال جربه المسلم كام إنه waxa uu ka ganacsanayo marka hore iska hubiyo xalaal ba mise waa xaraam in tayada waxa uu ka ganacsanayo iyo bulshada waxa uu keenayo ka fikiro tusaale ahaan ganacsata magaalo ganacsi baynu hadda joognaa Boosaaso ganacsiyo kala duwan baa ka jira yani dawadii baa laga ganacsadaa xoolihii baa laga ganacsadaa bagaashka baa laga ganacsadaa runtii anoo fursadan ka faa'iideysanaya ganacsatada ana u dhaxmarinaya warbaahinta waxaan rabaa inaan ugu baaqo qofka ganacsi ku jira waa inuu markasta aanay maskaxdiisa ka marnaan inuu waxaan ribix ka raadiyo ka faa'iideysto wax ummadda anfacayana u keen wuxuu iska ilaalinayaa marka waxa dhacay waxa tayada liita waxa maxaan ilaadaa qofka dhibaato ay nooc ah ee ahaataba u geysanaya maanta waxa la oran karaa Soomaaliya waxay noqotay maadaama burbur dawladeed ka jiro oo cid ka kantarooleysa aan jirin in laga yaabo waxyaabo aan munaasab ahayn dalka la soo geliyo oo dharkii waa tayo xun yahay oo cuntadii waa tayo xun tahay oo dawadii waa hooseysa cidda kaliya maanta ee bulshada wax ugu taala bulshaduna ayna ilaaween ilaahayna subxaanahu wa ta'aala agtiisa ajri kaga helayaan waa qofka taajirka ee amiinka oo la rabo inuu waxan uu ka kasbanayo ilaahay uga baqo isla markaana ummadda uu ka jeegarayo ka tijaabiyo doctor aad ba u mahadsan tahay markii ammaano la maqlo ma waxay ku kooban tahay kaliya qofku inuu wixii loo dhiibay ilaaliyo mise waa ka guda weynta dabcan sida caadiga ah waxa dadka maskaxdooda ku soo degdegaysa hebel waa aamin waa qofka wadaa'icda inta loo dhibto sideedii u guta laakiin waa ka guda balaaran tahay من الناحية يعني المفهوم الإسلامي وكجدوين هي قفكاس هو أمين ومعنى هذا وحوي ضمان وحكست إلهي سبحانه وتعالى كواجبيه وإلهي كآمني إن وقفك جتوي معنى هذا هدينا نقول لهيد وحي إلهي واجبات كله كلها هدينا نقول لهيد أمد وحي كلها هدينا نقول لهيد أمانة ذا هذا جناح سبان كجرناية يعني وحوي إنه في كل أحواله أمانة ومارت كسفوجه وقف أمينة ونقضه مركا هذا صاقبنا أمانة وكجود بلارن تهاي وأنا كم عنوين تهاي ألعاب أنت اللي قول دبتي أقف كقول دبتي سيدي قول دبتي لنا عيبة بيسوق لسه وهيسوق لسه إن هذا قف كخيامين وهيسوق لسه إن هذا واحد يحن أكينين وهيسوق لسه واحد إلهي كل يبي عرورت هذا يحاس كاجا إيو أنت لا مسؤول كاجا دي إن ضيعن يا وتنبي عليه الصلاة والسلام لنكي وإيماني أو لها يا رسول الله يوم الساعة محو النبي وجوابي إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة أمانة ده مركز تضيعه ما أرتي واحد سكتها قيامة مركز لنكي ويدي ويري فكيف إضاعتها يا رسول الله رسول الله السلام يتهي أمانة الضياعية مركز النبي والشيخ عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر ساعة مركي لودي والطلادة أما أمرك عدن أهل أهين قيام ديسو إذا مرك أمانة وكجود بلارن تهي وحيسوق لسه أمانة عظمى جاهدو مسؤولية جودة أمضى سيد دولة وكله وحكلو سوق لسه وحلو جود يبتو يرى ودائع ده أنا جودته أنت بيسوق لسه. دكتور أتبع ما سنت هاي ما لديه كرا قفك التاجر كوناكسن مسلم كا إني كم أنت وحيلا أقوم بهم سنة كسي سيهاي وحلو إتقانك حنقض قفك الشقالة شقال الله دري يقفك وحوش قبنا يودن إنه إتقان وقبت السجد تاك ورا والله وما سنت عبد الفتاح سان شيغني أمانة ذي قيب كمدوي إتقانك أم عملك قفكو إنه السجو هادو سانعي هاي ورشد وتشوجو وحو السمين إنه السجو هادو شقالية هاي حلقة شقادة إنه مارتي السجو محان هذا وح كستا وسمين إنه نقول وح
سجن وتنبي عليه الصلاة والسلام لها إن الله إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إلهي سبحانه وتعالى وحو جعليه أحدكين مركي وحسمين أيه إنه عمل كسره ونقضى وح سجن وأن دبلو ونغني أنت تبرتيسة وحكم ده نصوص ربنا ما أنت عدينس إلهي سبحانه وتعالى القرآن يقول ليه ويل للمطففين يعني وحهلاك السجن هذا كوا خفيفية ميزان الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون marka iyagu dadka wax ka soo beeganayaan way soo ofsadaan waxay ku soo darsadaan bimaana sida ugu fiican bay u soo qaataan wa idha kaaluhum aw wazanuhum yukhsirun marka iyagu umada u beegayaanna way nusqaamiyaan culimadu waxay dhahaan kaliya miisaanka gaar kuma aha ayadaas ee waam wax kasta shaqada soo galaysa waxa soo galaysa macallinimadii waxa soo galaysa qofkii muwadafka aha waxa soo galay qofkii يعني تصالحان يعني قف كان مشاهر لا يعني إنه مركو مشاركة قادنا يوصل حوك كتجنا يسيس لوصية شقدينا وسيد وقبان يعني ويسوق ليس طبعا ويسوق ليس محايا قف كان شغالها ولا له شيء إن وقت معين يقول له شيء راتب معين يقول له شيء هدي مركا آنو أنتي تبرتيس فاتقوا الله ما استطعتم أنتي تبرتيس هذا سيد أهدو جدا وحنغني آثم ودنبابيه sida darteed diinteen waxay inoo ku yeeraysaa yani in qofku labadii dhanba xaqaaga addi alwaajib thumma utlub xuquuqak yani waajibka lagu saaray samee kadibna xuquuqda aad leedahay markaas dalba doctore afku waxa ku dhufatay dadka saanica ama dadka xirfadlayaasha ah markaad fiiriso ruhantu wax laga yaabaa qofkii inaadan ku aamino dul taagnaatid yani ilaa inteebu qofkaasi la dhihi karaa amaanadii wuu dayacay ama taajir ama saanic amina ma aha maadaama aadan shaygii uu ku hagaajinaya aadan ku halayn karinba wallahi waxa soo jeedinay talo sida aan sheegnay undee amaanadii qofka uu dayacay way laakiin waxaan oran lahayn uun يعني قفك مسلم كأه وحيابها اللي جربوا إلهي سبحانه وتعالى كل حساب تمي وحكم ذا إن أنو وكفوا هذا وح الله وحي ربي عرجلنا يا سبحانه وتعالى ويكم التهيدتك وحسمية وصناع ذا أما وحيبوا نسقامين يا أسيد الصمينين أما وقت يجي لك أوقف تبانو مكذب داعية ولذلك waxyaabaha dhaqaalaha islaamku uu leeyahay waxa kamid ah alwafa in balanta la oofiyo wa awfu bil ahdi in al ahda kana mas'uula waxa kamid ah in qofka la khiyaamayn oo maartay sidii qofku uu rabay ama sidii shaygan ku balanteen aad ugu oofiso si fiican in doctore akhlaaqiyadka islaamiga waxa kamid ah dhaqaalaha islaamku ku xiran yahay إنه قفك داعد نقضه جناع صداع وسقش ثمين كانوا ليش نفير سكور أنت اسمه حاجة مريساي طبعا غش معناه هذا خيامة دي وأنا فهمتي بالشوين كمسلمين تآفات كهيستبي كمتها وأنا بهرنتي إنه ضمانتين بالإسويدينو رسولك عليه الصلاة والسلام سيدا كسارة حديثك صحيحة مع المالمها كميدة أي سوق أصابه مركزو وحو أركي عنتو كدبنا معناها أفكا كفرا وقروح بضن كدبنا قعنتي سيبو ساء قلي مركو طبعا النبي قعنتي قلي عليه الصلاة والسلام عنتدي وحا نبي قعنتي سقارتي محي قيان بلل أي قعنتي قارتي مركزا نبي يري عليه الصلاة والسلام ننكي بايعه وحو يديه ويري maxay tahay cuntada saan maxaa ka dhigay markaas wuxuu ku jawaabay asaabatu sama ya rasuulallah yani roob ku daay markaas nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam hadii ay roob ku daay maxaad umada ugu bayaamin weyd si u arkaan in roob ku daay saadarteed ama ay ku qaataan ay kaga tagaan si fiican
ولذلك يعني خيامة أما غشكو قفكو وآفاتك وقدرا أو ضدك المسلمين تهيستا runtiina للأسف waxaa laga yaabaa in dad gaalo ah oo maaragtay waxa weeye ilaahay aan rumaysnayn subxaanahu wa tacaala oo aan waxa weeye yani wax khayra aan lahaynba baa laga yaabaa inay mararka qaarkood mumaaraseeyaan oo ku dadaalaan inay khiyaamada iska ilaaliyaan على سبيل المثال wadamada reer galbeedka waxaa laga yaabaa qofkaas reer galbeedka xataa mararka qaarkood isaga oo khiyaamo samayn kara inuu iska ilaaliyo khiyaamadaas sababtu isaga ilaalinayaana ay tahay inuu dhaqan ka dhigto raba waa wax uu isku dayay inuu sameeyo wax la amaanayo maaha oo iyagu deetii amaanadii weyneed bay badayaan ilaahay bay ku gaalabeen subxaanahu wa tacaala laakiin waa wax jira oo maaragtay inta qiima oo la rabo dadkii muslimiinta ahaa inay ilaaliyaan sheekh aan u malaynay inuu ahaa maxamed cabdo ayaa waxaa la dhahaa wuxuu tegay faransa markaasaa waxaa la yidhi wuxuu ka tegay dabcan masar maxamed cabdo masar ayuu ku noolaa wuxuu tegay faransa kadibna mudduu soo joogay hadal buu markuu soo laabtay baa hadal laga sheegay hadalkaas waxa weeye markaan faransa tegay ra'aytu islaaman bilaa muslimiin markaan soo laabtana ra'aytu muslimiina bilaa islaam يعني هذا الكاس يعني هدو صح نقضه يعني تعبيركم أنا واحد جديد ومن كودنا لفظ قاس حضور هو صح نقض لكن مركل ضدكي قال هذا هايو ما رتوحوا إلهي أن رميسنين بالغيها بوح بدن أو إسلامكم آمن سني هاي إن السمايا لكن للأسف ضدكي مسلمين تأها ولا ربي إن أي نغن جليان وحي إلهي سبحانه وتعالى هالذي كان غني وحي كهر مريين وحي مارتي كبراريين إني مارتي وحوي كذا يعنتها مركب إحنا ركرنا إن غشك أم خيامة استمرنتا مصوماسقة لالوشك وح أمدنا رنتي هالكعدجي أو إنه لهر مري ويني وميلنا وجاري ويني دكتور ما دام ما أنت الدولة إنه كرميريسا أما إنك كانتروليسا إسنجرين وحنا عنينه يوحنا قوضنا إنه بعض الله سبحانه وتعالى كسو كون قف كاس حلقة إبسنا يؤون إنه آمني إلى أنت بإسلامكو ماركتي وكبر هنا يا هلب كان عن عنينه نيف كان إسقى حنوسن ميال قلي أنتي داوة مركز للسية تحولها حتى داوة للسية كنية للسية سواء ولي جركي داودي كبحين انتي لكانوا إلا قاله أما عانيس انتي اللي صول لعبه درت حتى قدارتي مركز الورو شينيو نسونتا يعني أن ميزان لهين أما أن إلى انتي لو تلقلي مركز وحصل أن عد كان تروليس أو الدولة دا أينان هايسن إلى أنت مسؤولية كسارة يقف كاس عن نفتين كهالين وحين أفكرين عن كهالين أنا كيبسن طبعا هذا الشيء عبد الفتاح ضدك مسلمين تا إسلامكو مركز اللي فقه الجنايات أما فقه كان عقوباتك وحاولها تاريخ الإسلام كما كدولة رها عقوباتك إسلامكو دجية أما حدود ودجية حليدي خلافات كإسلام كصومرين لما تطبقين انتو ضبطا مثلا قفك زكاة حليه قفك وحاذا يوكله كعنت نمجين يعني خلافات العمر وحال الشيء طبعا سنة اهي وحال الشيء مقف كعنت لقيم سلام بقيم معنوها محي ضدك وحاكو بدنا وحلا يراهضو الوازع الديني يقفكو إنه ومعليش إن قفكو يعني دينته وآمن سنة هي قيمك وآمن سنة هي أي وحي أدي ديسا وحي أبدا أو خيامة ما يستمرنا أما وحلا مد إنه سمي ولذلك دينتنا وحي حق أسرتها إن dambiyada iyo dhibaatooyinka intaanay dhicin ay ka hortagto oo sida ugu hortagaysan waxa way dadka in la islaaxiyo
la tawjiihiyo la wacyigeliyo markaana xuduudda ama maarta waxa weeye ciqaabtu ay ku dhacdo dad aad u yar oo marka aan de rajo kale lahayn in uu ummadda laga safeeyo maaha marka waxaan oran karnaa runtiina fursaddan uga faa'iidaysanna bulshadu inay xil iska saarto qof kastaaba meeshuu joogo inuu ummadda aan looga soo dhicin furinta isagoo joogo aan ummadda looga soo dhicin hadduu hilibkii joogo neefkii inuu ummadda ka ilaaliyo caafimaad qabaa nadaafadiisa ilaaliyo hadduu alaab keenayo san sheegnay uu ka kantaroolo mar kastana ay madaxiisa ku jirto laba shay صح qofku ribix doon way faa'iido doon inuu wixii faa'iido ka raadiyo isla markaana uu fiiriyo bulshada maxay u taraysaa in isla markasta oo diinteeda maxay yeelaysaa akhlaaqiyadkeeda maxay yeelaysaa marka dabcan waxay ku soo ururaysaa yani nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisii man gasha falaysa minna yani qofkii wax khiyaameeya annaga naga mid maaha يعني معناه ده حويه إيمانك ربطها إسلام نمد ربطها قفك لجمه هنوي معناه إيمان كاملة ولا ما يصير قفك لجمه هنوي مركا هنركرنا إسلامك يصير حل أو لبعتين بدن أو مسلمين تهي سو كم تهي وحنا هذا إن كنت الماء مني خيام هذا استعمرنت دكتور مثلا مركا تاجرك أمانة اللي جوايه مسؤولية laga waayo tusaale ahaan qof maaragtay uu og yahay inuu u baahan yahay kiniya la baristamola mesela u baahan yahay inuu garaan 6-5 dhiig u diro tusaale maaragtay isagoo daawadii optiona badan ay kala leedahay mesela tan jabantay tan raqiisan tahay soo jeebkiisa fiirinaya oo kala aabayeelin sidee bay ugu noqon kartaa noloshiisii caruurtiisii isaga iyo isaga naftiisii ila intee bay saameyn ku yeelan kartaa markii uu taajirku amiin noqon wallahi dabcan inta hadda aan soo sheegaynay waxaan u maleynayaa qofku haddii uu u fiirsado waa fikradu waa waadax way caddahay haddaan si kale u dhigno de qofkani wuxuu cunay hadduu u qastay oo og yahay dee wax aan banaanayn oo xaaraama wixii dabcan waynu ognahay yani raadka xun ay leedahay qofku in ama gurigiisa ay gasho ama caruurtiisa ay gasho ama naftiisa ay gasho wax aan xaaraam ah oo aan banaanayn ama xoolo aan maartay banaanayn oo ogtahay nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamo qofka 4 su'aalood baa la weydiinaya yani waxa kamid aha وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه يعني حوليسا حجابه ككسبي حسك به ولذلك إن قفك اخترك أما حنقول هذا فرنسية هيستا أما بنجي جوجا أما شغلك لها هي أما معلنك أما مسؤول دولة ذا قف كستا وحصارا وين ميزان كسارة مالك حقيقة كسبتي وسؤال كوتاجن إلهنا سبحانه وتعالى وهو إن كل حسبتهم حقيقة بحسي يدنا وسؤال إنه تهلا أو ماركتين ويدينه دكتورة أدب ما صنت هاي قفك ماركتي أما جنعسيجا إلى حقيقة كوتاجن وحل له استقلالي يعني كفائديسي يعني وصل قفكو مر والبا مصلحة فيري وصل فيري مصلحة برشادة وأمرنا يا إن حلقات كهرنا قار كجوابني يعني كفائديسيجا أما دنيسيجا طبعا إسلامكم ما أكله هذا صاك قبلنا إسلامكم هو يقول لي هاي أفكا كون الدنيسو ون الدنيا يعني منفعة تبادل المنفعة وإن أي سومالنا واحد ترى هذا قعمة إصرافة أي قعدتوي كجرت هي قعدتوي كجرت معناه حويه وإن وحي أمضوا أي سعلسة تاسانا أمضوا لباتوين بدن إيه كبد بهذس مركب حنا ركرنا يعني دين تانو سيك لنا عكستوي وديديسا كودانيسي هل لنا وديديسا ما أنا أقوله وحنا في ليا إن حلقات هراء كجواب
isaga ka waran ixtikaarka iyo dhibaatada uu ku keeni karo dhaqaalaha islaamka monopoliga iyadana waxaan filayaa in hadda ka hor aan ka jawaabnay dabcan waan ku celinaynaa ma banaana qofku inuu u qasdo inuu ummadda intuu ka cuna qabateeyo badaa'icdii suuqa looga baahnaa si uu maarata ribix siyaada ugu helo yani ribix waa ka heli karaa waa u bannaan tahay intuu doonu siisan karaa laakiin inuu ummadda ka xanibo oo uu maarata ka afxiro kadibna markay wixii qaaliyoobaan uu markaa ummadda usoo bandhigo waxa weeye arrin bannaan oo sharciga ku bannaan ma aha waa hagaag daawadayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijkeennii ganacsiga amal wixii fariimo aad qabtaan ama su-aalo aad qabtaan ama commenty aad qabtaan noogu soo gudbiya baraha bulshada ee bangiga amal uu ku leeyahay youtube-ka iyo facebook-ka iyo twitter-ka iyo emailada iyo telefoonada shaashadda inay ka muuqda barnaamijka maanta wuxuu ku saabsanaa akhlaaqiyaadka dhaqaalaha islaamka uu ku saabsan yahay waxaana marti inuu ku ahaa doctor maxamed faahiye baa marti inuu ku ahaa doctore islaamku wuxuu qabaa wax la dhaho isku dhelitir bixinta uu qofku kharashaad bixinayo iyo maaragtay iyo sadaqadii uu bixinayo marka waliba bangiga amal waxaan filayaa wuxuu leeyahay adeegyo aad fara badan oo qofka u keenaya inuu dhaqaalihiisu noqdo mid isku dhelitiran marka maadaama bangiga amal bangi islaamiya uu yahay ilaa inteebuu ka qayb qaataa inuu dhaqaalaha islaamku noqdo dhaqaale isku dhelitiran hadday kaydka noqoto hadday bixinta noqoto haddii ay intaba dabcan dhaqaalaha islaamku mabaadida ku dhisan yahay ama akhlaaqiyaadka dhaqaalaha islaamka waxaa ka mid ah in uu ilaaliyo isu dheelitirka yani qofka muslimkaana waxyaabaha laga rabo waxaa ka mid ah waxa ilaahay siiyo inuusanna yani wada bixin inuusanna wada haysan labaduba waa laba sifo oo diinteenu inoo diidayso waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakaana bayna dalika qawaama yani haddii qofku uu wixii gacanta haysto oo bakhaylnimo oo maarata waxa uu noqdona dee dhibaatooyinkii aanu kasoo sheekaynin baa ka dhalanaysa oo aanu sakadii ka bixin oo sadaqadii ka bixin oo maarata waxa weeye aanu qaraabadii ka xiriirin dhibaatooyin tiro badan baa ka dhalanaya soo waxa gartay maaha waa laga yaabaa xoogaa inuu xuntuntuumiyo laakiin barakadii baa ka duulaysa dhibaatooyin badan baa ka dhalanaya calaa sabiil mithaal haddii aadan xoolaha fuqarada ku celin waxaa badanaysa jidgooyada badanaysa haddii aadan sakada bixin xoolihii waa laga dhacaya haddii aadan sakada bixin waxaa dhici karta xoolahaagii inayba ku dhaafaanba waxaasoo dhan waxay marka ku tusinaysaa in wax la bixiyo inay muhiim tahay sidoo kale haddii qofku uu maaragta waxa weye xoolaha wada bixiyona haddii waxa weeye marka isagiiba wuxuu usoo noqonayaa yani faqri ku dhacaya oo xoola la-aan ku dhacaysa waxaa marka la rabaa waxa ilaahay siiyo inuu waxna ka bixiyo waxna kaydsado waad garanaysaa xadiiskii sacd oo markuu maaragta waxa weeye dardaarmay waxa weeye saxaabigii markuu maaragtay dhimanayay waa tuu maaragtay waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam loo sheegay oo ku lahaa maaragta waxa weeye xoolahayga ma wada bixiya markaasuu leeyahay maya ha wada bixin markaasuu leeyahay kalabar ma bixiya markaasuu leeyahay maya ha bixin markaasuu leeyahay saddex meelood meel ma bixiya markaasuu leeyahay bixi saddex meelood meel waa bixin kartaa waa meesha ay ka keeneen culummadu markii qofku dhinto xoolihiisa saddex meelood meel in loo sadaqayn karo oo nabigu waliba markaas wuxuu leeyahay والثلث كثير يعني saddex meelood meel waliba waa badanta waxaasoo dhan waxay daweynaysaa qofkii inuusan wixii wada bixin waa garanaysaa maxaan ku idhaahdaa
يعني waxa weeye qofkii inuu maartay waxa weeye aan xoolahi wada bixin inuu wixii haystona lama rabo saan sheegaynay yani dhibaatooyin kala ka dhalanaysa hadda aan soo sheegnay marka waxaan oran karnaa islaamku ama dhaqaalaha islaamku wuxuu ku dhisan yahay in qofku waxa Ilaahay siiyo oo qaarna haysto ku intifaaco qaarna oo maartay bixiyo oo dadka u baahan siiyo dabcan bangiyada islaamkuna arintaas dabcan door weyn bay ku leeyihiin oo maartay waxa weeye iyaguna way bixiyaan oo ama ka qayb qaadashada abaaraha ama maxaan ku raahdaa zakada laftigeeda ummadda in lagu celiyo iyo wixii lamid ah ay qayb doctore su'aasha u dambaysan rabo inaan ku weydiiyo maadaama bangiga amal uu yahay bangi islaami ah dhaqaalaha islaamkuna akhlaaqeed uu ku dhisan yahay ilaa intee bangiga amal uga qorshaysan inuu xaqiijiyo hadafka ah inuu noqdo bangi islaami ah boqolkiiba boqol ama santa Cabdulfataax runtii yani ereyga bangiyada islaamku waxay horta yimaadeen kadib markii soo baxaan kuwan oo maartay bunuugta ribooyga ama maartay waxa weeye conventionalka ah oo maartay waxa weeye ku dhisan nidaamka ribooyga kadib markii ay kuwaas yimaadeen ayaa waxa caalamka islaami ka bilowday bunuugta islaamiga sida bank Dubai islaami oo kale iyo bunuug kale tira badan oo caalamka kala firsan ay bilowdeen ujeedada laga lahaana waxay ahayd in laga fogaado dadkiina la siiyo ama loo qabto adeegyo loogu kaydinayo ama loogu kobcinayo bulshadii horumarkeeda ka qayb qaadanaysa isla markaana waafaqsan shariicadii iyo diinta islaamka sida darteed bangiga amal waxyaabaha ka go'an ama uu qaatana waxa kamida in uu ku dhaqmo ama uu maartay ilaaliyo boqolkiiba 99 shariicada islaamka waa طبعا bini aadan ayaa gacanta ku haya waxyaabaha arinta muujinaya waxa kamida على سبيل المثال wax alla wuxuu sameeyo bangigu shariicada ayaa loo bandhigaa wuxuuna bangigu leeyahay board ama culamo mutakhasisiin ku ah dhaqaalaha islaamka oo loo celiyo wax alla wixii productiya ama la sameeyo oo marka bangigu uu sameeyo iyaga ka soo tala bixiya waxaan soo saxiixna boardku bangigu ma sameeyo waxa kale iyadana bangigu aad ugu dadaalaa markii la soo ansixiyo oo min naxiya nadariya aragti ahaan ayaa hadana amaliyan loo hubiyaa ma loo fuliyay sidii ay ahayd tusaale ahaan markii muraabaxada la sameeyo in laga ilaaliyo marnaba qofka macmiilka in inta lacag cadaana gacantiisa ay gasho in wax loo soo waxa weeye hadii wax loo soo iibinayo gaari iyo buqcad iyo wixii la midana inta loo soo iibiyo bangigu la soo wareego isagu uu mas'uuliyad qaato kadibna macmiilkii isagu halka joogo intuu u yeero dib uga sii iibiyo raashinkiisa soo kale runtii dad khayr la siiyo hawshaas u tababaran oo maaragtay waxa weeye isla markaana aad u garanaya fiqhiyan fulinta barnaamijkaas ayaan runtii loo xilsaara wallaahi alxamdulillah ilaa haddana waxaan oran karnaa sidii aan raalida ka ahayn oo aan u maleynaynay waxa weeye inay shariicadii maartay waafaqsan tahay ama u dhowdahay in maartay waxa weeye lagu dabaqo magaranaysa aad ma doctor waa hagaag daawadayaal intaas waxaan ku soo afmeeraynaa xalaqadeena 12aad barnaamijka ganacsiga amal in kaga yimaada xarumaha SBC xilligana wuxuu kaga imaanayay xarunta SBC ee magaalada Boosaaso wixii aad u baahataan dad gadaal xalaqaadkii hore iyo tanba aad gadaal uga daawan kartaan baraha bulshada aan ku leenahay Facebook iyo YouTube iyo Twitter ka sidoo kale wixii su'aalaha waxaan ugu soo diri kartaan emailada iyo telefoonada shaashada inay ka muuqdaan talooyinkiinu waa noo muhiim bangiga amal waxa ka go'an inuu qayb ka noqdo horumarka bulshada siba dhanka ganacsiga intaynu xalaqo kale ku kulmayno وأنا قاعد استعجبه وإني كنت جاي إنتاسيو نبت قليل طبعا دكتور كنا أصدق كله. إن شاء الله.